Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu walaalaha garbahaygow kusoo dhawaada wehelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa youtube-ka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel alaaba barnaamijkan waxaa idin soo gudbisaa isla anigoo ah walaashin Xafsa Sayid soo dhawaada meel walba ay joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suubayno Allah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillaah waxay inoo soo socday kitaabkeeni imtixaan ahaa ee la magac baxay baro 100 xadiis hase yeeshee intaan u gadagelin darsigeeni maanta ugu horeen haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore nala joogtaan like saar share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 7aad biidnillaah 6aad cafwan insha Allah bismillaah عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa aatee wuxuu dhahay laa yuuminu axadukum midkiin iimaan dhaba oo dhammaystiran lagama helin xataa yuxibu liaqiihi maa yuxibu linafsihi ilaa wax uu naftiisa la jeclaado ilaa wax uu naftiisa la jecel yahay uu walaalkii la jeclaado can anas radiallahu canhu anas allah ka raali noqdee wuxuu ka baranayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam nabadgelyo naxariis korkiisa aatee qaala inuu dhahay laa yuuminu axadukum midkiin iimaan dhaba oo dhammaystiran lagama helin mid idinka mid a xataa yuxibu liaqiihi ilaa uu la jeclaado walaalkiisa maa yuxibu linafsihi wax uu naftiisa la jecel yahay nabigu wuxuu dhahay midkiin iimaan dhammaystiran oo dhaba lagama helin ilaa uu la jeclaado walaalkiisa wax uu naftiisa la jecel yahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen oo aad ka faa'iideen insha Allah walaalkaaga muslimka ah yani waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga insha Allah wax walbo aan nafteeda la jeclahay waa idin la jeclahay inaan ila share gareeyo waana dardaarinkii nabiga sallallahu calayhi wasallam waa hal ku dhigayay waa hadal mar walba aan idin soo xasuusiyo insha Allah maantana xadiis ahaan ayaa u qaadanaynaa aadan ugu faraxsanahay inaad maqashaan maqalkeygii waa idinka mahadcelinayaa qaabka quruxda badan ee aad ila socotaan dhammaan waan salaamayaa waan ugu mahadcelinayaa inta magaceygii muuqayga taqaanaba waan ugu mahadcelinayaa qaabka quruxda badan habsamida leh ila socotaan oo markii aan maqanahay aad i weydiistaan axaadiista waan ku faraxsanahay qiimaha ay leeyihiin iyo baahida aad u qabtiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan baan kusoo dhaweynayaa asxaabta ku cusub youtube-ka inay kusoo biiraan oo ay subscribe saaraan asxaabtii hore nool joogtana sii share gareeyaan insha Allah guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkayga maanta waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka haddii aad dhamaysid inaad like saarto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala